Assalaamu calaykum. Waa bilowgii aasaaska bandhigga la magac baxay wax ka ogow qaybtiisii koowaad. Muuqaalkeenan maanta waxaanu kaga warrami doonaa dhammaadka adduunka iyo calaamadaha uu Nebigu sallallahu calayhi wasallam uu sheegay in aanu qiyaamuhu dhici doonin ilaa la arko calaamadahan oo badankoodu yihiin qaar dhacay laga reebo 10 rasmiga ee waaweyn. Muuqaalkeenana wuxuu si waadix ah uga hadlayaa dhammaadka zamankan iyo mustaqbalka soo socda. Haddaba daawada ka hor intaanan gudagelin muuqaalka like saar, subscribe na saar oo ku soo biir falaaxtu daawasho wacan. Ugu horreyn waxaanu tilmaami doonaa qaar ka mid ah calaamadaha yaryar oo iyagu ilaa xad aad u tiro badan. Nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu sheegay in la furan doono Baytul Maqdis oo ilaa haatan Yuhuudi haysato, in masaajidii gudaha iyo dibaddaba si aad ah loo qurxiyo, inay farabataan dadka wax akhriya balse ay yaraadaan dadka wax fahma. Taasina maaha arrin cusub, waa arrin hore loo arkay. Inay dulmiga iyo xaqdaradii ay farabataan oo ku xooga weyn yahay uu daandaansado. Inay dumarkii farabataan raggiina yaraadaan markaynu eegayno mujtamaca deegaanka. Sidoo kale inay soo baxaan dad wanaagga faraya xumaantana reebaya balse aan ahayn ayagu qaar oofinaya oo ku dhaqmaya arrinkaas. Toddobaad, in cadaaladii iyo xaqii la qariyo. Intaasi ayaanu kaga imanaynaa calaamadaha qiyaamaha kuwooda yaryar. Waxaynu si toos u gudageli doonaa 10 calaamadood ee waaweyn. Dajaal. Waa kuma Dajaal? Waa nin aan labadiisa indhood wada qabin oo Ilaahay masaxan tahay, wejigiisana waxa kaga qoran kaafa yara oo isku noqonaysa kafara, macnaheeduna tahay uu gaaloobay. Dadka xun oo dhanna isagay raacayaan isagoo ku baaqaya waxaan ahay Ilaahay. Waxa garab taalo janno oo qofkii aamina uu mutaysanayo, balse halka Ilaahay waa naar oo qofku wuxuu dareemayaa cadaab. Halka qofkii diidaana uu galayo naartiisa, balse halka Ilaahay wuxuu dareemayaa naxariis iyo jannadiisa. Waxaa sidoo kale uu rasuulku sheegay inaanay geli doonin Maka iyo Madiina, balse munaafiqiinta iyo kufaarta isku qarinaysa halka labada magaalo way gariiri doonaan, kadibna way ka soo bixi doonaan. Waxaa soo degi doona Nebi Ciise calayhi salaam kadib markuu masiixu Dajaal dunida rogo, waana uu dili doonaa. Waxaa soo bixi doona qoom dhiigii caba oo ilaa xad aad u tiro badan, dunidana fasaadin doona, laguna magacaabay Yaajuuj iyo Maajuuj, balse ugu dambayn way baabi'i doonaan oo dunidu ka qarsoomi doonaan. Dukhaan iyo qiiq ayaa samada ka iman doonta. Inay cadceeddu ka soo baxdo meelaan ahayn meeshii looga bartay, macnaha inay ka soo baxdo galbeed. Waxaa soo bixi doona Mahdiga. Haddii aan sharaxaad idinka siiyo, waa in cadaalad la iman doonaa oo heer waxay dadku gaari doonaan in la waayo qof sadaqadii qaataa barwaaqo iyo nabad daraaddeed.
sidoo kale waxaa dhici doonaa inuu dhulku bariyo galbeedba uu go'o. sidoo kale qayb ka mid ah jasiiradda carabta inay dhul go'do. sidoo kale wuxuu rasuulku sheegay inay soo bixi doonto daabad dadka la hadlaysa. qodobka tobnaad ee ugu dambeeya, naar ama dab ayaa ka soo kici doonta Yaman, iyada oo dadka eryan doonta una eryan doonta meeshii lagu xisaabinayay. wixii intaa ka dambeeyay qiyaamo ayaa dhici doonaa. qof walbaaba wixii adduun ka shaqaystay ayaa lagu abaalmarin doonaa. xoolahana ha noqoto eridii bilaageeska ee tii geeska lahayd waa looga jari doonaa. alla waa qafuur raxiim. qofkii islaamnimada ku dhintay lagama yaabo inuu naarta ku waaro, balse kii gaalka ah hoygiisu waa jaxiimaa. jannadu waxay leedahay 8 albaab, naartuna waxay leedahay 7 albaab. waxaa soo bixi doona qolaha Acraaf la yidhaahdo oo khayrkoodu iyo sharkoodu isleegyihiin, naar iyo jannana u dhexeeya. ugu dambayntana jannada ayay geli doonaan. allana weligii waa kii baaqi noqon doonaa. kuwa jaxiimo u hoyda weligood iyo allood alla arki maayaan, balse kuwa jannada u hoyda alla jimco walbay arki doonaan nuurkiisa iyo quruxdiisa. waana labada baaqi ahaan doona jannada iyo naartu. allah inaga dhigo kuwa jannada u hoyda ee balse ogsoonaada laguma tegayo waxaan ka ahayn wixii aad dunida ka shaqaysatay. halkanna waa daarul camal, aakhirna waa daarkii laisku abaalmarinayay. wardadoo ku xeel dheeraada wixii wanaagsan ee alla aad ugula hortegi lahayd. intaasay noogu eegayay muuqaalkeena maanta. fadlan haddii uu muuqaalku cajabiyey like saar, subscribe saar oo kusoo biir filaatu. assalaamu calaykum.